السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaynu joognaa xafiiskii mu'asasada tawciya al-islaamiya, waxaynu joognaa warshadii ay soo kordhisay mu'asasada tawciya al-islaamiya. warshadani ma aha warshad fi sabiilihum guri ah, maaha, waa warshada dacwada tawciya. waa mu'asasada tawciya al-islaamiya warshadii ugu dambeysay aan dhawaan furnay. warshadani tadawuraad bay samaysay, alxamdulillahi rabbil caalamiin. waxaanu haynaa noocyadii kala duwanaa ee macsarta. waxaanu soo kordhinay xabaasuudii baanu soo kordhinay, iyada oo midho ah, oo midhihii ah, iyada oo maaragtay saliidii ah oo kala nooca saliidii yareed, saliidii waaweynay, iyadoo insha allahu tacaala budadii ah baan iyadana soo kordhinaynaa oo aanu soo xirxidhaynaa bacaha screenkan aan ku xidhi doona insha allahu tacaala. intaasi waa waxa maanta ay mu'asasada tawciya al-islaamiya ay wado. waa hagaag, mu'asasada tawciya al-islaamiya maxay hore u soo qabatay? waxaa laga yaabaa inaad su-aal isweydiiso, mu'asasadani maxay tahay, goormaase la aasaasay? mu'asasada tawciya al-islaamiya waxaa la aasaasay 2001. maantana waxaan maraynaa 2024. waa muddo 24 sano oo dacwad ah. waa 24 sanadood oo dacwad ah. hadda ogow, macsartani fi sabiilihum guri maaha, liajli dacwan uga jeednaa. boorkan iyo hay-adan hay-atu tawciya al-khayriya waxaan uga jeednaa dacwad baan uga jeednaa. ma fahamteen? marka insha allahu tacaala waxa aanu doonaynaa in aanu dhalinyarada ku dhiirigelino in ay aaminaan in ay gacantooda unkan karaan. نبينا صلوات الله وسلامه عليه وسلم يد العليا خير من يد السفلى. يد العليا خير من يد السفلى. وحنوبها أنها إلى اختراعات لنا، وحنوبها أنها إلى وحسوكر إنه أي لو بعيها. وحي مؤسسة التوعية الإسلامية لأن يرى كنت ببريسي أفر يلا وطنك صلاة الدعوة أم سوودني إن أي نقضان لأن يرى اسكو كالصون أو اسكو فلان ربنا اسكو حلال. maaha in bini-aadam la isku xidho, maaha in cid kale la isku xidho, waa in alqina qina nafs. nabigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh, nabigeena wuxuu yidhi alqina qina nafs. qaninimadu waa laabta, maaha jeebka, lacagtana maaha. sidaa la ajrigeed waxaynu u baahannahay in dhalinyarada la dareensiiyo in ay hal adeeg yeeshaan, in ay hal abuur ay yeeshaan. mu'asasada tawciya al-islaamiya waxa ay dhalinyarada bari jirtay oo ay samayn jirtay in ay dhalinyaradu ikhtiraacad sameeyaan, in ay qof waliba fikirkiisa iyo waxa uu soo kordhin karo uu soo kordhiyo. ayaanu wadnay taasaan ku taabari jiray. insha allahu tacaala waxaanu idin siin doonaa bal barnaamijyadii ikhtiraacadka ee ay mu'asasada tawciya al-islaamiya ay ku tababartay dhalinyarada. sidaa la ajrigeed haddii dhalinyarada la dhiirigeliyo wax badan bay samayn karayaan.